ururka badbaadinta Soomaaliland waxay idinku filan magaciisa Soomaaliland buu badbaadinaya Soomaaliland buu isu keenaya Soomaaliland nasiib daro xuduud baa dhex taala war cad weeye in badan oo halka joogta ma taqaano oo waxay jooga military iyo xuduud qorolugudna xuduud baa taala iyo guduudna xuduud baa yaala Soomaaliland dhexdeeda military degan yahay wuxuu ka shaqeynaya Soomaaliland inuu isu keeno dadkiisuna wuxuu ka kooban yahay lab iyo dadig wuxuu ka kooban yahay cid kasta wuxuu ka kooban yahay kuwa aynu yasno oo magacyo ugu yeedno haddaan taa ka gudbo waxaanu diyaar u nahay inaanu waxaanu isku mabda'nahay mucaarad dhaba ah inaanu isku xidhanno baanu diyaar u nahay waanu bilownay dib u habaynta mucaaradka saaxil islaamiga usin wixii mucaaradadeedu dhab tahay waanu bilownayba waanu isku xidhnay waxaan u gudbayaa doorasho ma dhici kartaa labaanu kala qaadaya horta doorasho ma dhici kartaa talabaadna waxa weeye doorasho xaqihii ma dhici kartaa doorasho ma dhici karto simbuli waxa weeye dhul aan dawladda maamulaysaa doorashada aanay gaadhin baaba jira waxaan aad iyo aad ugu xumahay oo runa labada wasiir ee halkan fadhiya aniga sharaftooda meel kaga dhacay ma tegi karaan laascaano hadda cid uma diidin hadda ma aha in laascaan dadka laascaano diiday wax dawladdu goosatay weeye haddii laba wasiir iyo meelaha dhulbahante la siiyo labadaasaa marmar leeyahay barorda meeshii soo eega wasiira daakhligii Soomaaliland oog buu ka soo noqday kuwii SNM-ta ahaa ee lahaa mujaahidiin baanu nahay waa soo jahaadnay intay wasiirra noqdeen dadka ugu waaweyn qorolugud bay ka soo noqdeen maamulkii laascaanood bacayna baa loo soo raray kii buu hodlena waxaa loo soo raray qorolugud xabadii baa dhacaysa dadku waa hubaysan yahay lama tirin 20% of the people hargeysa jooga waa ajnabi weyn anigu waxaan keeni karaa 200 oo kun oo majeerteena oo ii footeeya maxaa celinaya maxaa loo dhigay horta wax qofka kule doorasho dhacayso dadka ha isku dilin doorasho ma dhici karto run markaynu wada hadlayno haddii dadka qaarkii intan arkeen oo meelaha layd ka baxayo oo meelaha dawladdu joogto Soomaaliland inteeda badan maamulku ma gaadhin hadduu gaadhayna mid sax ma aha mar dhawood waxaan maqlayay raallahayga ahdo Cumar Maygaagole nabadda iyo labada habeenimo halkan dumarku maran dawladda maamulkeedu dhab wuxuu u gaadhay berbera hudisa ma gaadhsiisna waa run doorasho ma dhici karto dadkii lama tirin aniga iyo ninka Itoobiyaanka ah wax noo dhaxeeya ma jiraan barigii dhawada distoorka waynu wada rabnaydee saddex jir baa footaynayay oo runa because waynu wada rabnay sanaadiiqda meelahaasaanu la tegayna waanu buuxinaynay laakiin kan waa lagu tartamayaa haddii in adeerkay aan ogaado inuu foodkii iga badiyey 20 aanu ilmaadeernahay baan leeyahay gub doorasho ma dhici kartee dadka yaan la isku dilin mid xaqana hadalkeed badaa doorasho xaqa baaba laga hadlay sidee doorasho xaqa u dhici kartaa udub baaba samaysan ninkii haystay militarigii iyo booliiskii iyo lacagtii dadka iyo gaadiidkii dadka oo aanu aragnay gaadhigii dawladda oo nambarkii inta laga jaray udub meel walba lagaga dhicay hadda waanu naqaanaa dawladdaale oo xafiiskii dawladdu kiraysan yahay oo barasaabkii udub yahay doorasho xaqa oo ka dhici kartaa dalka ma jirto iyada lafteeda isdulintay udub lafteeda baa isdulintay qaar ka cadhoodeen meeshii hoos laga dhisi lahaa la isdooran lahaa iyada ismagacawday iyadii baa ku kala duday fakayfa narju linsaafa min qowmi suu'in miyuu yidhi waqad xallu lyahuuda bibayti qudsi nimanka iyakii isdulmay kama sugayno cadaalad aanu kula tartanno doorasho ma dhici karto
ma dhici karto mid caqliga gashaana ma dhici karto waxa loo baahan yahay in la isu yimaado beenta in la iska daa haddii la rabo Soomaaliland in la badbaadiyo weey kursi jacayl iyo meesha waan haysanayaa haddaanay wuxuu ahayn waan ku shubanayaa haddaanay ahayn article 83 baa ii diyaar ah oo guurtiday kordhinaysa haddaanay ahayn run haddaynu u wada hadlayno haddaynu rabno dalkeenna inaynu badbaadinno aanis halaysu yimaado habkii doorashadaba oo nin waliba qof waliba ku kalsoon yahay loo qaban lahaa hala sameeyo dad badan baa waxay ka xanaaqaan shir qarameed baa la qabanaya ama shir beeleed baa la qabanaya Soomaaliland inta goore ay dhisantay 91kii burcaan joogay booramaan joogay hargeysaan joogay beelaa dhisay xabadi ma socoto xabad yani maanta la leeyahay reer hebel ama dawladda iyo reer hebel bislaynaya ma socoto laakiin waa la kala dilay Soomaaliland waa la isdulmay in la wada hadlaa la doonayaa dawlad kama qayb galayno aanan wada hadlin oo ogaanin xaq aanu leenahay kama qayb galayno runtu taa weeye wasiirka soo shaqo taga ama ninka meelaha ka shaqeeyana Sacuudi Arabiya nin shaqo tagay buu noqonayaa in la wada hadlo weeye in wax la kala qorto weeye dulmi dambe lama yeelayo qabiil ka sareeya lama yeelayo dawlad meel ku kooban lama yeelayo haddii la rabo Soomaaliland inay badbaado let us get together aan wada hadalno aan kala cabanno aan isu garawno nabad yaa sameeyay nabad who made gaarigaad halkan ka saxaysata caawa boosaasaad ku gelaysaa boosaaso ayaad ku gelaysaa ma dawladda samaysay ma dawladda laascaanood iyo xudun iyo hadeer nin baan u sheegayay reer boorama baa waxa ku yiri xagee baad ka timi exactly waxa meel weyn la yiraahdo 15 kilomitir bay qardhow jirtaa waqtigaano ku dhowraayana waxaan jecelahay su'aalihii dambe dadka nuwaadii doorasho ma dhici karto mid xaqina ma dhici adleedihiin xaal ahaada waan ka baxayaa waxaan idhi warma waxaad u haysataan haddii nasiibkiinu idin siiyey meelaha inaad kuraas dhigan kartaan ama ilbaxnimo haydin keento ama nasiib haydin keeno ama dawladdu haydin samaysay anigu meesha ka imi doorasho laga ma qaban karo sidaa ha noola hadin ee dab intaad noola hadashaan isu keenay kana aan qaban waa mahadsantii qaali ahaada haddaad meelaha qaarkood محمد عمر جيل ururka islaamiga anigu su'aaluhun baan raacayaa fikradeedana ku koobaya su'aasha ugu horeysa oo ah missionka iyo prioritiska xisbigu leeyahay su'aasha ugu horeysa oo ah missionka iyo prioritiska xisbigeegu leeyahay waxa weeye annagu